Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa magaalada Muqdisho ku guddoomiyey kulan ku saabsan iskaashiga Soomaaliya Midowga Afrika ee amniga, la dagaallanka argagaxisada iyo qorshaha ciidamada Soomaaliya ay kula wareegayaan amniga dalka oo uu la qaatay xubno ka socday golaha ammaanka iyo nabadda Midowga Afrika oo soo gaaray magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya kor u qaadi doonto tayada iyo kartida hay'adaha amniga si ay ula wareegaan mas'uuliyadda amniga dalka sida ku xusan go'aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Xamse Cabdi Barre Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay in Soomaaliya isku diyaarinayso guluf weyn oo ka dhan ah argagixisada si loo furo wadooyin muhiim u ah gargaarka isku socodka dadka, isagoo ka dalbaday isku xirnaan iyo wadajir dhinacyada howlgalladu ay quseeyaan. Sidoo kale waxa uu xusay in dib u habeyn lagu sameynayo maaliyadda dalka si looga hortago maalgelinta argagixisada. We are determined to launch the forceful and the comprehensive fight to counter Al-Shabaab, ISIS and other terrorist organizations through military and non-military means. Therefore, I would like to underscore the importance of preserving the gains made so far, as well as continuing the current momentum by intensifying the joint offensive operations to reopen main supply routes that are critical for humanitarian efforts, commercial activities, and the free movement of people. We also intend to maintain and strengthen our financial sector reforms in order to have the tools and means to combat the financing of terrorism and limit their access to funds. Most importantly, however, this administration is adamant on raising public awareness and mobilizing all segments of the society, including the Islamic scholars, traditional elders, the business community, women, and the youth to join our efforts to eradicate extremism, each in their own capacity. In Somalia, we say, far kaliya fool ma dhaqdo, which means a single finger cannot wash a whole face. As African brothers and sisters, we must strengthen our collective resolve to counter the transnational threat of terrorism within our continent and beyond.